Soomaaliya waxay ka dhul weyn tahay dhammaan dalalka Yurub oo idil, marka laga reebo Ruushka oo ah dalka ugu weyn caalamka. Haa, waa runtayda, Soomaaliya waa dal leh dhul aad u weyn oo gaaraya ku dhawaad 640,000 kiiloomitir square. Assalaamu calaykum, magacaygu waa Amiin Amni, halkaad naga fiirsanaysaan waa kanaalka Faraxlow. Ku soo dhawaada muuqaal si hagar la'aan loo diyaarshay. Waxaa idinkala soo hadlaya magaalada Muqdisho oo ah caasimadda dalkeena Soomaaliya. Waa magaalada ugu dhulka yar magaalooyinka Soomaaliya, sidaa ay tahayna Muqdisho ayaa ah magaalada ugu dadyowga badan magaalooyinka Soomaaliya, waxaana lagu qiyaasaa dadyowga ku nool Muqdisho ku dhawaad 3 malyan oo qof. Soomaaliya waa dal Islaam ah, dadkeeduna yihiin 99.9 boqolkiiba kuwa Muslimiin ah, weliba Sunniyiin. Markan aan ka sheekeyno dayaxumo ka jirta dugsiyada Qur'aanka Kariimka. Dugsiyada Qur'aanka waxay ku yaalaan goobo aan ku habboonayn. Inta badan dugsiyada Qur'aanka waxaa laga dhisaa hareeraha waddooyinka, dhismahana waxay u badan yihiin jiingado, maadaama macalinka uusan awoodin inuu dhiso qolal dhagax ah. Carruurta ma helaan qalab u fududayn kara barashada Qur'aanka Kariimka sida kuraas, musqul, iyo goobaha lagu nasto, iyo wixii la midka ah. Waxayna Qur'aanka ku bartaan dhulka iyo jiingadaha kulul oo aan ka celinayn qoraxda, halka goobaha maadiga lagu barto laga heli karo musqul, goobo lagu nasto, kuraas iyo miis, iyo goobo lagu cunteeyo, iyo wixii la midka ah. Waxayna iskuulada inta badan u dhisan yihiin dhagxaan ama daaro. Dowladda Soomaaliya ayaa wax dhaqaale ah ku bixin dugsiyada Qur'aanka, waxayna dowladda dhaqaalaheeda u weecisay dhanka iyo dugsiyada maadiga lagu barto. Duruufo adag ayay ku shaqeeyaan macallimiinta Qur'aanka, sidaa ay tahayna dadaalka iyo juhdiga ay ku bixiyaan barashada diinteena suuban ee Islaamka ah ayaa keentay in Soomaaliya loo aqoonsado inay tahay dalalka kaalmaha hore kaga jira xifdinta Qur'aanka Kariimka, dunidana noo ogsoon yihiin. Wasaaradda Waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay waday imtixaan ka qaadis ilaa dhowr kun oo macallin, laakiin kaliya laga soo xulan doono ilaa 3,000 oo macallin, taasoo wasaaradda ay siin doonto macallimiintaas mushaharkii ay ku shaqayn lahaayeen. Waxa ugu weyn oo ay hiigsanayso wasaaradda waxbarashada ayaa ah in macallimiinta iskuulada maadiga la gaarsiiyo ilaa 10,000 oo macallimiin 3 sano ee soo socota ee mudxuleedka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ka harsan. Balse waxaa meesha ka maqan doorkii ama taageeradii ay mudnaayeen macallimiinta dugsiyada Qur'aanka. Haddaba daawadayaal mudan in la taageero dhaqaalana lagu bixiyo dugsiyada Qur'aanka iyo dugsiyada maadiga.